daawadayaal saaxiibayaal marka hore salaamullaahi calaykum kuna soo dhowaada barnaamijkan oo aan ku soo qaadan doono habeenkii weynaa ee Liverpool iyo wax kasta oo ka dhacay dunida kubadda cagta ee qaaradda Yurub suuqa ayaan ka marnaan doonin. Chelsea waxay u waalanaysaa Pjanic, Oliver Giroud isna waxaa looga gacan haatinayaa Talyaaniga. kuwa iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaa, balse marka hore like saar muuqaalkan. haddii aad nagu cusub tahayna soo dhawow oo subscribe dhaho janaalkeena. Liverpool habeenka ay tahay habeenkeeda iska badaa Burnley xitaa ma celin karaan duul ka yimid duni kale, waxaana ay awood u yeelatay inay ku durduriso kooxda Burnley oo martiqaad ugu samaysay Turf Moor. ciyaarta ayaana ahayd mid go'aaminaysayba hanka taageerayaasha ee ka mid noqoshada afarta boos ee ugu saraysa Premier League. way dagaalameen, ugu dambayntiina si xaraga leh ayay kooxdii Klopp ugu soo tillaabsatay Burnley kadib 3 gool oo ka kala yimid Roberto Firmino, Nat Phillips iyo Alexis Oxlade-Chamberlain. waxaa soo martay habeen weyn oo aysan iloobi doonin. guushaasina waxay noqotay mid ka caawisay inay fadhiistaan booska afaraad ee kala saraynta horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. welina dagaalka waa mid u rahman ilaa iyo maalinta ugu dambaysa horyaalka Premier League oo ay ku xaqiiqsan doonaan in kal ciyaareedka soo socda ay qayb ka noqonayaan tartanka Champions League. Liverpool taariikh ahaan waa kooxda ugu guulaha iyo koobabka badan tartanka horyaalada Yurub marka loo fiiriyo kooxaha ka dhisan Ingiriiska. waana ay adag tahay koox meeqaam intaasi la-eg qaaradda Yurub ku leh in kal ciyaareedka soo socdo laga waayo Champions League. wixii ay filayeen ayaana si tartiib ah sidii shumaciyo kale ugu soo shidmaya taageerayaasha Liverpool. geesiga reer Brazil ee Roberto Firmino ayaana haatan dhaliyay goolal ka badan horyaalka Premier League Fernando Torres, waana 66 gool uu u dhaliyay Liverpool, halka Torres isna uu leeyahay 65 gool. dadka qaar halistiisa ma fahansana Roberto Firmino, laakiin waa mid looga faa'iidaysan karo siyaabo kala duwan. haddii uu ku dhalin hal kulan waa uu ku caawinaya, haddii uusan ku caawininna waa uu ku dhalinayaa. waana waxyaabaha uu sida gaarka ah ugu jeclaaday wiilka reer Brazil macallimka ka soo jeeda Jarmalka ee Jurgen Klopp. iyadoo tani ay farxad weyn u ahayd taageerayaasha Liverpool ayuu haddana difaacii hore ee xulka qaranka Ingiriiska iyo Manchester City Richards wuxuu saadaal cusub ka bixiyay sida uu ku dhammaan doono xilli ciyaareedkan afarta ugu saraysa horyaalka EPL-ka. Richards ayaana rumaysan guushii xalay ay gaadhay Liverpool iska badaa kaalinta afaraad inay fadhiisin doonto booska saddexaad ee kala saraynta horyaalka EPL-ka. Leicester ayuuna ku tuuray booska afaraad, halka shanaad uu ka riiday Chelsea. weliba Leicester kulankeeda ugu dambeeya waxa ay la ciyaari doontaa Tottenham, iyadoo macallimka kooxda Leicester ee Rodgersna uu yaqiinsan yahay in kaliya kooxdiisa looga fadhiyo inay noqoto guulayste si ay u xaqiiqsato ka mid noqoshada afarta boos ee ugu saraysa EPL-ka. laakiin kooxda dhibaatada ay haleelayso waa Chelsea sida Richards uu saadaaliyay, waxaana plus uu u ishaaray in ay seegi doonto afarta sare isla markaana aysan guul ka soo qaadan doonin istaadiyaha Aston Villa ee Villa Park, halkaasi oo kulanka ugu dambeeya ay ku ciyaari doonto. Leicester City waxay isku dhibcan yihiin Liverpool oo waxay haystaan min 66 dhibcood, laakiin waxa ay ku kala horeeyaan xagga goolasha oo Leicester ayaa haysata 20 gool, halka Liverpoolna ay ku xisaabtamayso 24 gool. Richards oo hadlayay ayaana yidhi, waxaan leeyahay Chelsea barbara ayay gali doontaa kulanka Villa Park. Leicester waa ay garaaci doontaa Tottenham, halka Liverpoolna ay guul ka soo hoyn doonto kooxda Palace. dhawaqani waa dhawaq riyaa gelinaya cid kasteetoo Liverpoolays ah, laakiin marka laga hadlo xaqiiqada kama shakisani kooxda ka dhisan galbeedka London ee Chelsea.
waana kooxda awood u yeelatay inay ka soo kacdo booska sagaalaad ee kala saraynta horyaalka EPL-ka ilaa iyo ay ka mid noqotay afarta ugu saraysa ee Premier League. waxaa kaloo yaab lahayd inay gaareen finaalka FA Cup-ka inkastoo ugu dambayntii laga afduubtay, waxaana ay joogaan finaalka Champions League. waa ay adag tahay inaan haatan ka shakiyo in Chelsea ay waynayso afarta boos ee ugu saraysa EPL-ka ileen waxa ay ibartay waxa ay tahay tan iyo markii gacanta uu ku dhigay Thomas Tuchel. weliba macallimu Jurgen Klopp isna wuxuu qirtay in kulanka Burnley ay u ciyaareen sidii finaalkii oo kale, isla markaana ay daruuri ahayd inay helaan guul si ay u riyageliyaan taageerayaashooda iyaga ka dambeeya. caawiyaha kooxda Aston Villa isagana waxaa la leeyahay wuxuu si toos ah qulubta ugu dumiyay taageerayaasha Tottenham kadib markii inuu ku horbooday isla markaana uu caddeeyay John Terry inuu ku soo guulaystay koobab badan. ileen iyaga waxay caddeeyeen in John Terry uu ka wacan yahay difaac horay u soo maray Hotspurska. waxay ahayd habeen xun oo soo martay kooxda ka dhisan waqooyiga London, kuwaasi oo guuldaro 2-1 ay ka soo gaadhay Aston Villa. weliba Harry Kane isagana waa caddaystay bixitaankiisa kadib markii uu macsalaameeyay taageerayaashii Tottenham ee ku sugnaa istaadiyahooda ka dhisan waqooyiga London kadib markii ay soo dhammaatay ciyaartii guuldarada ay ka qaabileen Aston Villa. kulankani waa kii ugu dambeeyay ee Tottenham ay ku dheeraysay waqooyiga London, waana marka kaliya ee fursadda uu u helayay taageerayaasha Master Harry Kane. Harry Kane haatan waxaa si toosa ugu waalanaya Manchester United, Man City, Chelsea, Real Madrid ilaa iyo kooxda Blaugrana. waana macquul, weliba macquul weyn ah marka uu soo dhammaado kal ciyaareedkan inuu macsalaameeyo kooxdiisa. Juventus iyadana waxaa soo martay habeen weyn oo ay ku guulaysatay koob Italy kadib markii 2-1 ay ku garaacday kooxda Atlanta oo iyadana ku hingowday inay iska tuurto heryadii ka saarnayd xagga koobka. Juventus ayaa koob Italy ku guulaysatay markeedii 14aad, waxaana sidaasi ay ku badbaadisay xilli ciyaareedkooda oo ay ku dhici lahayd koob la'aan, maadaama horyaalkii Serie A Talyaaniga oo sidii xiriirka ahaa ay ugu guulaysanayeen ay soo afjartay Inter Milano. Champions League-gana waxa ay ku hereen wareegga 16. Atlanta ayaa rajaynaysay inay harato koobkeedii ugu horeeyay tan iyo 1963 iyo inay ka soo kabtaan niyadjabkii Lazio ay u geysatay finaalka tartankan 2 sano ka hor. Kulusevski iyo Chiesa ayaana baabi'iyay rajadoodii. Gianluigi Buffon ayaa isagana lagu macsalaameeyay hanashada koob weyn, waana mar kale uu ku guulaysanayo koob Italy. wuxuu horay ula soo qaaday kooxda Juventus 1990, 2010 iyo 2020. maxuu ahaa mid cajaa'ib leh iyo saxiix ay ku riyaaqday kooxda Bianconeri. Ronaldo ayay sidoo kale isagana waxay u noqonaysay habeen marnaba aan la iloobi karin, waxaana uu awood u yeeshay inuu ku guulaysto koob kasta oo maxalli ah oo laga heli karo gudaha Ingiriiska, Spain ilaa iyo Talyaaniga. waana laacib taariikhda isku qoray. geesiga reer Portugal mar kastaba waa guulaystee cajaa'ib leh. PSG iyadana 2021 waxay sare u qaaday Coupe de France kadib markii finaalka ay kaga badiyeen 2-1 kooxda Monaco. waxaase yaab leh 4 sano kadib markii uu ka soo tagay Neymar kooxda Barcelona 2021 wuxuu awood u yeelan waayay ku guulaysiga abaalmarin weyn isaga oo jira 30 sano iyo 8 bilood. marka Neymar PSG waxay u noqotay inkaar kaliyana waxuu eeganayaa mushaaraadkiisa ee faa'iido weyn halkani uma taalo. Arsenal lankeeda dunidan waxaa ku soo martay waqti ay ku raaxaysatay waxa ay tahay, waxaana ay awood u yeelatay in 3 gool ay kaga badiso kooxda Palace oo ku soo dhaweysay Selhurst Park. waxay ahayd waqtigii Nicolas Pepe oo isaga ayaa lahaa 2 ka mid ah goolashaasi, halka Gabriel Martinelli
uu ka yimid goolka kale. Martin Odegaard ayaana shaqadiisa lahaa. 3 gool iyo sal Horst Park ayaana u noqonaysa wax weyn oo niyadda ay ku qabowsan karaan taageerayaasha Arsenal. Dunidan waa ay soo martay, khaasatan dunida Premier League barya ay ka tilin jireen, balse waxay ka dhul sugayaan taageerayaasha in mar kale ay soo marto ka talinta horyaalka EPL-ka, waana ay dhici doontaa waqti aanan fogayn. Ogow, Arsenal waa kooxda kaliya ee awoodda u yeelata inay harato horyaalka EPL-ka, weliba midkii dahabka ahaa, maadaama uu soo maray xilli ciyaareed la awoodi waayay in laga badiyo. waana waqtigii Arsene Wenger. weliba sidoo kale wararka waxa ay leeyihiin ciyaaryahanka qadka dhexe ee Miralem Pjanic isna waxa uu ka soo muuqday bartilmaameedka kooxaha Paris Saint-Germain iyo Chelsea. laacibkan waqti aan wanaagsanayn ayuu ku qaadanayaa gudaha gobolka Catalonia, wuxuuna u muuqdaa in riyaaq badan uu ku dareemaynin xirashada maaliyadda Blaugrana. Oliver Giroud isna waxa laga yaabaa inuu la midoobo wiilka jooga dheer ee reer Sweden Zlatan Ibrahimovic. Gazzetta dello Sport ayaana sheegaysa in kooxaha Serie A Talyaaniga ay u muuqdaan kuwa mudnaan weyn siinaya weeraryahankan, isla markaana ay u malaynayaan inuu u wacan yahay sumcadda kubadda cagta ee Talyaaniga. wuxuu dhaliyay 4 gool oo Premier League ah, laakiin door xadidan ayuu Chelsea sanadan ku qaadanaya. waana laacib diris la ah dhadada iyo barafka iyo busta ka dhacaysa kursiga kaydka. isaga naftigii waa uu doonayaa inuu ka tago Chelsea oo wuxuu u baahan yahay koox uu ka helo safka hore inta uusan ka fariisan xirfadda banooniga. wanaga inta barnaamijkii uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman.